soo noqod wanaagsan kusoo dhawaaw channelkayga magacayga waa Ifraax YouTube-ka daawanaysa waa Ifraax Home Decor haday tahay markii ugu horeysa channelka soo booqdo welcome haddii aad horena joogtana welcome back aniga ilaa subscribe dhahdid like and comment inshallah maanta waxaan jeclaysanay in la soo share gareeyo video ku saabsan update qolka fadhiga waxayna ka bedela rabaa nadiifiyo hagaajiyo markalada iyo gurigan iska nadiifiyo inshallah hadda waxa waa jaanis haystaa waqti aan guriga habeeyo video idinku soo updating gareeyo babygaad way hurda inshallah marka hadda waxa jeclaystay dam soo garahan meesha ka soo gada dam soo garaan soo weydiisay marka waxa ka heli kartiin description-ka ama meeshan ayaa dukaanka soo saari doona soo meeshaas kala socda meeshaan ka heli doontiin haduu ilaa yiraahdo marka walaalahayga qaaliga maanta waxa jeclaystay inaan guriga ka dhigo kalarkan yellow-ga aad u jecelahay kalarkan ayaa soo diyaarsaday saa arkaysaan waxa isticmaalona kalarka oo silverka ayaan ku isticmaalona yellow-ga iyo masha Allah barkimihiisa cadaanka barkimaha cadaanka waliga ma ka tago barkimaha waxa markasta waa wataa aad u jecelahay barkimaha cadaan fadhiga ma laga waayo barkimaha marka fadhigayga aad u weyn yahay meeqa oo barkina isticmaali kara barkimaha isticmaalo waxa waaye 10 xabo ka yar ama isticmaali 11 12 ama 10 xabo ugu yar 8 xada waxa laga yaabaa mar qaar inaan isticmaalo laakiin waa mar dhif marka maadaama wuxuu barkinta isticmaalaysin wuxuu ku xiran tahay fadhigaaga sidoo uu weyn yahay haduu fadhigaaga yar yahay waxa isticmaali kartaa barkimo yar haduu fadhigaaga badan yahayna waxa isticmaali kartaa barkimo badan soo barkimaha badan markasta guriga fadhiga qurux ka dhigayaan sangareysid oo kala habaysid oo marbo hal meel aan hal xabo wada dhigin marna aan qaybna aan wada dhigin marka waxa laga baahan yahay meel kasta inuu wada gaaro barkimaha dhaxda ka jabaayana waxay noqotay hada model oo dadka dhan ku daateen masha Allah aad loogu helay waxaan waa guriga quruxdiisa inay siinaysa barkimaha kale waa isticmaali kartaa of course laakiin barkimaha dhaxda ka jaban waxay noqotay masha Allah barkimaha aad u qurux badan oo inta badan hada loogu design gareeyo design marka laga hadlayo soo marka inshallah soo nadi habeenaya barkimaha soo saaraya inshallah waa arki doontiin soo ku soo bixi doono dhamaadka ilaa bilowga inshallah marka hadii aad tahay marka ugu horeysana aniga ilowina subscribe family-ka ku soo biirtid like ta comment-igana hana la dhaafin inshallah inta hore noo la joogtani waxa leeyahay waa ku mahadsantihiin dhiirigelintiina waa ku mahadsantihiin everything in your supporting grace laantina waxba maan ahaadeen marka daawasho wacan I hope you enjoy the video miiska oo fadhiga sidaan ka soo dhigay wax badan oo soo isticmaaleen waxoogaa yariis oo qurux badan masha Allah kaaliska arag ayaa meesha inoo soo saaray kaalo qurux cadaanka aad uga helaa aniga marka kalarka cadaanka iyo kalarkan dahabiga masha Allah aad u qurux badan waan soo saaraya diishan oo pinkiga waxaan soo isticmaalay maadaama oo dabqaadka oo wax yar oo wax ku jiro roose taas awgeed soo isticmaalay hada kaliis ka dhigi lahaa waxay noqon lahayd
yacni boqol bil qurux badnaanayso labadooda hadda arkaysa way isku eg yihiin maasha allah. Qaybtan barkimahan sidan ayaan usoo dhigay marka barkintan oo arkaysaan silverkani waxaa usoo ku matching gareynaya daahayga ayaan waxaa isticmaalay daah grey ah iyo silver ah, so that's why isku eg yihiin oo marka aad iskula soo baxay insha allah waan arki doontiin. Daahaas isticmaalay qaybtan kalena waxaan soo isticmaalay barkin yariis ah iyo barkin weyn ah, marka barkimahana way kala saas duwan yihiin, way kala saas yar yihiin insha allah waxaad arki doontiin. Qaybtan kalena waxaa ugu badan kalarka oo yellow-ga ah, barkinta silverka hadana waa tana qaybna xagga ku isticmaalay daahayga hadda arki kartiin meeshaas waxaa waaye grey ku jiro iyo silver ah, marka aadan iskula soo baxay maasha allah. Barkintan waxay ahayd barkinta caadiga ah oo 30 lagu dhiftay 20 waaye way ka dhuuban tahay way yar tahay, marka dhexda waxaan ugu dhajiyay pin yariis ah arkaysaan oo maasha allah aadan qurux ugu soo baxay. Just waxaa waaye decoration-ka wax walba waxaa waaye fikrada aad la imaadid le waaye. maasha allah asxaabteeda qaaliga waa kana sidaan ay kasoo dhigay ugu dambeyntii waa soo nadiifiyey miiska waa soo sharaxnay maasha allah. waa arkaysaa maahino kalarkan si qurux badan ugu soo baxay qolkeyga fadhiga maadaama uu yahay kalarka greyga iyo cadaanka iyo yellow-gana maasha allah lagama sheekeyn karin inaad ka arkaysiin samaha maasha allah. ani waa ka helay run ahaantii adinkan inta ka heshina rajeyn doonaa. miiskana waxaa waaye alaab yariis oo qatran kusoo sharaxay wax badan ma soo gelinin, so waa kana I hope inaa ka heshaan. qaybtaasna waxaan kasoo dhigay yellow oo badan waxoogaa cadaan iyo silver. marka asxaabteeda qaaliga waa kana hadda guriga howsha iga soo dhamaatay waxaa waaye ku dhahay unsiga ugu dambeeya soo shiday guriga dhan waan soo xarfiyay unsi waa la soo maray qolka fadhiga hadda maadaama oo videogan qolka fadhiga le maanta inoo ahay, so qolka fadhiga hadda aan keenay unsi caraf maasha allah it smells so good wallahi unsigan aad u jeclahay caraf sayd oo leeyahay qolka dhan hadda qolka fadhiga lagu shido qolka dhan way gaaraysaa, so I love it so maasha allah. everything is cleaning hadda guriga dhan waa ii diyaar. musqusha waan soo dhaqay waan soo nadiifiyey sidoo kale jikada marka alxamdulilah waxaa waaye marka hooyo tahay waxaa waaye hool kasta adiga ku sugaysaa mogtahay, marka waxaa waaye insha allah inaan iska dadaalno hooyooyinkeena inaan iska fikirno oo maasha allah relax aad qaadatid waqti aad qaadatid tartiib maalin kasta waqti kasta hool leh ma la qaban karo, waxaa waaye in jadwalkaaga ay ku degsanaato maalinba maalin oo aad qoratid maanta waxaan rabaa inaan hantaas aan sameeyo berina intaas aan sameynaa insha allah. inkastoo inuu hadduu ilaahay nafta inoo gaarsiiyo qorshaha ilaahay waa markasta hagaagsan marka insha allah aan ku dadaalno
inaa waqti fiican aa qaadatid naftaadana aad iyo aad ay muhiim u tahay. Waxaa u baahan tahay mararka qaarkood inaa waqti qaadatid just inaa oo howsha guriga iyo maasha Allah waxyaabahaas dhan aa kasoo dheeraatid. Waxaa u baahan tahay waqti degan, jawi degan maasha Allah. Dad kastana way u baahan yihiin just inaa hooyo kaliya because marka hooyo tahay mas'uuliyadeeda aad iyo aad iyo aad ugu sii saaran tahay. Wax badan aa lagaaga baahan yahay, hawl badan aa lagaaga sugayso, guriga hawl kaa sugayso. Hadaa shaqaysid, hooyo shaqaysataa tahay, shaqo baa ka sugayso wax walbo. So marka hadii aa naftaada ilowdid hadhowti hooyo wax qabsan karto ma noqon kartid. Marka waxaa u baahan tahay markasto inaad naftaada aamintid, inaad naftaada ku dadaashid and then markaas aa wax walba qabsan kartaa. Waxa ugu muhiimsan naftaadana aa ku dhiirigelin kartid, hore ugu socon kartid waxa waaye inaa hadaf leedahay. Hadaa hadaf leedahay oo wax aa rabtid inay ku hagaagaan, aa jeceshahay inaa wax samaysatid, hadii ahaa lahayd in aad shortcut ka soo qaadatid laysanka gaariga, iyo hadii ahaa lahayd inaa waxbarashada dhammaysid, jaamacad ka baxdid, iskuulka dhammaysid, everything waxa waaye wax walba gacantaada ku xiran tahay. Inaa aaminsan tahay inaa wax walba impossible ay yihiin oo haduu Ilaahay yiraahdo oo Ilaahay kuu fududeeyo aa gaari kartid. Guushana markasta waxay ku jirtaa gacantaada. Hadda waxaan soo shitay shumacayga, waan sameeyay wax yar oo casho casho badan ma cuneyno marka wax yariis casho ayaan soo sameeyay. Waa pancakes waaye malawax. Marka insha Allah malawaxaan soo diyaarsanay, film aan iska fiirsanayna bes. So halahaas waaye habinkeyga insha Allah. Baby-geygana berito wuxuu leeyahay daagiska waxaan sameeyaa isbuuc kasto ayaan sameeyaa dharka oo xanaanada ku aadi lahaa qaanadiisa ku rasaysan tahay. So ma u baahnina hadda aan diyaariyo. Marka I hope you like the video. Asxaabtayda inta video kusoo gabagabeynaya insha Allah video dhiirigelin waan soo wadaa oo badan. Insha Allah waxaan kaa codsanayaa subscribe and like comment. Insha Allah inta video kale wixii ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida nabadgelyo.